السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو وناكسن داوديال كسو دوادا وركي قدام بي الصوماليا اي عالمكا waxaad kala socotaan haga media waxaynu inta badan diiradda ku saari doonaa tan iyo xalay xaalka muqdisho maxaa iska bedelay iskoorimaatiyadii dhexmaray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay aan eegi doonaa midowga Yurub iyo UK waxay si culus u cambaarayeen dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Roble oo soo duubay muuqaal muran badan abuuray oo uga hadlay xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah dalbatay la sheegayna in ay soo dhaafeen ceelasha biyaha halkee ay ku wajahan yihiin ciidamadaasi waan eegi doonaa midowga musharaxiintana waxay cadeeyeen in taliya Farxaan Qaroole iyo ku-xigeenkiisa ay dagaalka ku soo biireen si ay u jabiyaan ciidamada mucaaradka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waxaana ay tahay maalinimo Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 26 bisha Abriil sanadka 2021 aynu ka horeynay ciidamada mucaaradka ayaa waxa aag cusub ay ka sameysteen fariisimooyin horle oo ay doonayaan inay ku tifaaxdaan degmooyin gacanta ugu jira iyadoo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kuwaas la mid ah ciidamada mucaaradka ayaa aag dagaal ka sameystay degmooyinka Hodan iyo Holwadaag halkaas oo ay xalay kula dagaalameen ciidamo daacad u ah dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ayaa sheegay in ay si toos ah u bartilmaameedsanayaan la taliyayaasha wasiirada iyo saraakiisha sida gaarka ah uga amar qaata madaxweyne Farmaajo waxayna sheegeen in dadka shacabka ah oo kaliya ay isticmaali karaan wadada Makka al-Mukarrama sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca madaxweyne Farmaajo ciidamadiisa iyagoo dhifaysyo dagaal ka qotay goobaha ay ku sugan yihiin Farmaajo ayaa amray in ciidamada Haramcad Gorgor Danab iyo Duufaanta ay dib loogu celiyo fariisimoodii kadib markii ay soo wajahday cabsi ah in villa Soomaaliya loogu soo daadan karo maadaama ay ku hareereysan yihiin ciidamo daacad u ah mucaaradka oo si weyn u soo abaabulay beelo koobanna ka soo jeeda xalay magaalada Muqdisho dadka waxa ay ku waabariisteen goorme ayuu dagaal kala qarxi doonaa waxaana muuqanaysay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho marnaba aysan ka baaqsan doonin in dagaal uu ka dhaco maxaa yeelay waxa dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynay abaabul dagaal oo aad u xoogan Cabdiraxmaan Cabdshakuur Warsame oo xalay la weeraray gurigiisa ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu la soo xiriiray isla markaana uu sheegay in nabad uu doonayo laakiin ra'iisul wasaaraha uu ku celiyay hadii isaga uu wax ka qaban karo ciidamada soo weeraray uu soo dhaweynayo tallaabada nabadda uu ku raadinayo waxaa sidoo kale xaalka Muqdisho lagu soo sheegayaa inuu yara joogsaday xalay dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ciidamada mucaaradka oo haysta wadada dabka dhinaca Holwadaag halka ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin dhinaca Waabari ayaa waxa muuqanaysay in mar walba qarka ay u saarnaayeen in dagaal kale uu ka dhex qarxo marka la eego rasaas goosgoos ayaa laga maqlayay xalay ilaa iyo fiidkii qaybo badan oo kamid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dabka sayidka saldhigga Waabari iyo kilometer 4 dhammaan ciidamada dawladda ayaa jooga oo gacanta ku haya iyadoo meel aan ka fogfogeen ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan mucaaradka kuwa oo doonaya in mar kale dagaal ay la galaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dadka Muqdisho ku nool ayaa qaarkood maanta waxay ku qasbanaan doonaan hadii xaaladda aysan isbedelin in guryahooda ay isaga barakacaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ciidamo gurmada ay dalbatay kuwa oo soo dhaafay deegaanka ceelasha biyaha kuna soo wajahan magaalada Muqdisho ciidan wata gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa 40 gaari oo beebayaal ah ayaa ka soo gudbay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ciidanka ayaa qayb ka Gorgor waxayna ka soo ruqaansadeen number 50 iyo number 60 oo ah gobolka Shabeellada Hoose wararku waxay sheegayaan in ay u yeeratay madaxtooyada Soomaaliya waxayna kaabi doonaan ciidanka kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ee tan iyo shalay dagaalada goosgooska ah la galay kooxaha mucaaradka ciidamadooda daacad u ah waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay doonayaan inay soo afjaraan guud ahaanba ciidamada mucaaradka ayna gacanta ku soo dhigaan hadii ay u soo ragasho hogaamiyaasha mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdshakuur Xasan Cali Khayre Sheekh Shariif iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Muqdisho waxay gashay marxalad kale waxaana sii xoogeysanaya gurmadyada ay helayaan dhinacyada marka la eego ciidamada ay haystaan
hogaamiyaasha mucaaradka waa kuwo aad u kooban, laakiin waxa ay garab ka helayaan ciidamo kasoo gadooday gobolka Shabeellada Dhexe kuwa oo diiday in madaxweyne Farmaajo muddo 2 sano ah uu dalka sii maamulo. Sidaa daraadeedna waxaa soo baxaysa in ay ciidamadaasi oo ah military iska difaacayaan weerar kasta oo uga yimaada booliiska isugu jira Gorgor iyo Duufaan iyo waliba ciidan kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu talagashay sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxyaabaha laga warinayo guud ahaanba magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah in la xayiray lacagihii ay la bixi lahaayeen askarta markii dagaalka uu ka qarxay magaalada Muqdisho, oo lacagtii iyadoo ku jirta akoonka oo qofka taleefankiisa ay ugu soo dhacday ayaan lala bixi karin, taasi oo lagu tilmaamay in dowladda ay xayirtay lacagihii askarta ay qaadan lahaayeen. waxaana ay wacad ku mareen dhammaanba saraakiisha ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya inay ka shaqeyn doonaan sidii ay u soo afjari lahaayeen guud ahaanba rabitaanka madaxweyne Farmaajo ee ah in muddo 2 sano ah dalka uu sii hogaamiyo. dhinaca kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo duubay muuqaal buuq badan uu ka dhashay sida uu uga hadlay xaaladda caasimadda Muqdisho, amar culusna bixiyay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo laga soo duubay muuqaal ka yar 1 daqiiqo ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay iyo dagaaladii tooska ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwa oo dhex maray ciidanka dowladda iyo waliba mucaaradka ciidamo daacad u ah. dagaaladan oo kasoo bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho ayaa dhinaca koonfureed ee magaalada ku sii fiday ilaa wadada Maka al-Mukarrama oo ah halka wado ay adeegsadaan dhammaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha ayaa ciidamada mucaaradka ku tilmaamay maleeshiyaad, isagoona kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku ammaanay dagaalka ay la galeen ciidankaasi. ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda dadka reer Muqdisho ay haysteen. waxaan farayaa cid walba in nabadda la ilaaliyo oo la wada dhowro, bulshadana loo turo. dowladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xalin karo. hawshaas oo aan bilaabay aniga oo rajeynaya inaan ku guuleysanayo, waxaan ugu baaqayaa shacabka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inaan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaraha kama uusan hadlin dagaalkii dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba khasaaraha ka dhashay. sidoo kale ra'iisul wasaaraha marnaba afkiisa ma uusan soo marin dagaalkii lagu qaaday guriga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo haddii uu ka garaabayo iyo haddii kale. waxaana dad badan ay ku sheegeen in ra'iisul wasaaraha uusan awood lahayn, sidaa daraadeedna ay soo baxayso in wax laga qorayo aysan jirin maadaama ay hawsha wadato villa Soomaaliya, isla markaana wax laga xumaado ay tahay ra'iisul wasaarihii la doonayay in shaqadiisa uu qabto uu ku fashilmay howlahaasi. dhinaca kale, midowga Yurub iyo dowladda UK ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoona fariin ay u wada direen dhammaan xubnaha taabacsan mucaaradka iyo muxaafidka ee ku dagaalamaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. ergeyga gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda Muqdisho. danta guud waxay ku jirtaa in wax la iskula haraa, hay-adaha dawliga ahna la wada ilaashado, wada xaajoodna la galaa. wuxuu sheegay in lala xisaabtami doono kuwa mas'uulka ka ah rabshadaha. dhanka kale, safaaradda UK ayaa walaac ka muujisay dagaalada ka socda Muqdisho, waxaana ay ku baaqday in xaaladda la dejiyo, wada hadalka nabadeed uu ku jiro danta ugu wanaagsan ee Soomaaliya. dhinaca kale, Axmed Daaci oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa ugu hanjabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan ka dhoofi doonin magaalada Muqdisho haddii dagaalada ay sii socdaan, isagoo sheegay inuu ugu baaqayo madaxweynaha inuu is-casilo, halka uu ku tilmaamay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu waday xil asaay ah oo muddo 4 bilood ah ku sinaa, 4 biloodna ay ka dhamaatay, islamarkaana lagama maarmaan ay tahay in dalka doorasho uu galo. dad badan oo dowladda taageerayay ayaa laga waayay saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada, kuwa oo si weyn usoo qori jiray in ay taageersan yihiin dhammaan dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhanka ah mucaaradka. haddaba maxaa ka jira in dagaalka ay ku soo biireen Farxaan Qaroole iyo ku-xigeenkiisa booliiska gobolka Banaadir?
ciidamo uu watay taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la sheegay inay ku biireen dagaalka ka socda Muqdisho kadib markii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilmeen in ay ka faramaroojiyaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada mucaaradka oo garab ka helaya military aad u hubeysan oo gadoodsan oo diidan in madaxweyne Farmaajo 2 sano dalka uu sii xukumo. taliya Farxaan iyo ku-xigeenkiisa taliyaha booliiska Soomaaliya Kaniif ayaa la sheegay in ciidamadooda ay galeen dagaalka ka socday degmada Hodan ee lagu qaaday aaga uu degan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka degay dhawaan meel u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim ayaa dagaalka uu ka qarxay, laakiin warar soo baxay ayaa sheegaya in halkaasi ay ku diyaarsanaayeen ciidamo daacad u ah Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade, sidoo kalena markii dambe dagaalka ay ku soo biireen xubno uu ka mid yahay Saadaq John, taasi oo keentay in laga adkaado dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda oo qaarkood laga yaabo in gobollo kale laga keenay magaalada Muqdishona si wanaagsan aysan u aqoonin. dad badan oo xaaladda la socday ayaa waxa ay sheegeen inay jiraan gawaari laga gubay dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysa in mucaaradka ay haystaan hub aad u xoogan. lama oga sida xaalka uu ku dambeyn doono, laakiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo 12 saac aynu ka soo gudubnay wadnaha farta lagu wadahayay ayaa dad badan ay maanta barakac cusub bilaabi doonaan haddii si degdeg ah aan waxba looga qaban xaaladaha adag ee ay wajahayaan dadka caasimadda. taliyihii hore ee Danab Ismaaciil iyo waliba gudoomiyihii degmada Dayniile Jacfar ayaa iyaguna waxay isku dayeen in ay dagaalka kaalin weyn ka qaataan kadib markii mar qura laga warhelay dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen dabka ilaa iyo sayidka, taasi oo muujinaysa in Villa Soomaaliya ay madaxa la galeen. haddaba maxaa keenay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo awood ciidan haysta inay ka adkaan waayaan dhinacan? dad badan oo arrimaha militariga ku takhasusay ayaa waxay sheegayaan in ciidanka dowladda oo lagu eedeynayo in weerarada ay qaadeen difaacyo laga xirtay, taasna ay muujinayso inay adag tahay ciidan difaac ku jira in la roqaamiyo, oo ciidanka dagaalka soo qaaday ayaa markasta jab gaari kara. maanta waxaa laga cabsi qabaa in mar kale dagaalo ay ka qarxaan magaalada Muqdisho, inkastoo ay jiraan odayaal dhaqan iyo dadka u ololeeya arrimaha bulshada oo doonaya in mar kale caasimadda dagaal uusan ka dhicin. laakiin wixii ku soo kordhaa halkan ayaan idinkula socodsiin doonaa, inagoo mar walba doonayna inaan idiin soo gudbino xogta dhabta ah ee xaaladda dalka. guud ahaan waa naga intaa warkii caalamka, intaynu dib ugu kulmi doonno warkankan xiga. nabadgelyo.